madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu si rasmi ah xariga uga jaray kuliyadda ciidanka qaranka Soomaaliland oo laga hirgeliyay deegaanka Dararweyne waxaana munaasabadaasi xariga laga jaray ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo uu ugu horreyn basalaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa madaxweynuhu kormeer ku soo maray xarumaha tababarka ciidanka qaranka Soomaaliland ee lagu carbin doono xafiisyadooda iyo goobaha jiifka ee ay seexan doonaan waxaana intaasi kadib goob fagaaro ah oo la sii qorsheeyay taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyo gaas Ismaaciil Maxamed Shaqale ayaa sheegay in kuliyadani lagu tababari doono saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay marxaladihii kuliyadda Dararweyne ay soo martay waxaanu madaxweynaha ku amaanay darajooyinka ciidamada oo ah haybada dawladnimo waxa uu sheegay in kuliyadan lagu bilaabi doono 300 oo sarkaal lagana sii badin doono sanadaha soo socda mudane madaxweyne fadliga ilaahay taakulaynta hagar la'aanta ah ee aad la garab taagan tahay ciidanka iyo dadaal aan hakashalayn oo taliska guud la yimid waxa ilaahay mahadi ah inaad maanta xadhiga ka jartay kuliyadda saraakiisha ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland kuliyaddan oo aanu u dhammaystirnay qalabka waxbarasho iyo macallimiintaba difcadda koobaad waxaa loogu talagalay in lagu tababaro 300 oo sarkaal iyada oo mustaqbalka sii kordhi doonta tirada lagu tababari doona mudane madaxweyne maadaama darajadii la qaatay waxaanu bilownay tababaro la siinayo saraakiisha ciidanka booliiska waxaana hadda tababaro ku jira 70 sarkaal oo isugu jira xidig leh ilaa dhamme waxaa kale oo nuxirada birimadka tababar uga furay ciidan gaaraya 100 kuwaas oo aanu tayadooda ilaalinta nabadgelyada sida tababarka gaarka ah ee ciidamada ay qaataan SPU iyo RRU lagu siinayo oo hadda u bilownay waxaana siinaya macallimiintii ka soo baxday Sandaafa oo ka tirsan isla hoggaanka birimadka ee ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama kulliyadan ay tahay tii ugu horreysay ciidamadu ay galaan mustaqbalka inay noqoto mid tayo leh oo ballaaran oo dhammaanteen u anfacda insha Allah waxaan ku tala jiraa madaxweyne inaan ka tirsan kaana asluubta haddii Ilaahay ka dhigo inaan ku darsano kuwaasoo noqon doona xidigle ilaa kabtan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa isaguna ka hadlay furitaanka kuliyadani oo sheegay in ay faa'iido weyn ay ugu jirto guud ahaan Soomaaliland gaar ahaanna ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku qaadan doonaan tababarada ugu casriyeysan ee caalamka laga isticmaalo alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan joognaa qaran adkaaday oo dhibaatooyin badan cid walba xaasirtay oo cirka lagala dagaalamo dhulka lagala dagaalamay laakiin naftu ka bixi weyday baynu nahay ummad adkaatay oo ciidankeedii qaran iyadaan cidina saacidaynin darajooyinkii u samaysay oo dagaal gelinaysa nabaddana odhanaysa daafaca baynu nahay nicmadaa ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إله تاي نجهي وينقوم بذيهي تدك النعمة ديديا قاربا أورندو أنا مقالة دي هركيسان ساكا كنمي سر لقبتي ما مجرو سر لقبتي سراكيل تمينا مجرتو شنطة بقول حقاي كاكينين كومانيالك حقاي كاكينين إنجي baalugta dabadeedii iskaga taagan imtixaanka adagna waa ku jiraa dabadiyo gudana waa laynagala dagaalamayaa ummadda tanu waxay ku caanbaxday wataniyad bay lahayd waxay halkaa ku soo gaadhnayna waa wataniyad jiil walba jiilkuu ka dambeeyo wataniyadii buu xambaarsan yahay waxaan u mahadnaqayaa bahweynta saxaafadda maanta wayna mutaysteen waxay aad u ixtiraameen aan ugu mahadnaqayaa oo ay qiimaheeda garteen darajadaa ciidamada la siiyey way ka nabad gasho way ammaan geliyeen aad bay u ammaan geliyeen waana ku ammaanan yihiin ciidankuna wax la gashadoo ka qaalisani ma jiro
warraggaa ina daafacaya warraggaa aynu soo jeedkooda inagu ku hurudnaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo furitaankii xafladdaasi ka hadlay ayaa xusay faa'iidada ay u leedahay kuliyaddani qaranka somalilan iyo guud ahaanba ciidanka jamhuuriyadda somalilan saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenadiisa. waxaan aad ugu faraxsanahay saraakiisha ciidamada kala duwan ee ay ka muuqato haybaddii ciidannimo hannaankii darajada ee hoggaaminta iyo kala dambaynta ciidanku. ciidamadu waxay ka mid yihiin astaanta qarannimada waxayna dalka u leeyihiin muhiimad weyn oo aan la'aantood dowladnimo jiri karin. annagoo ka duulayna mudnaanta ciidanku u leeyahay qaranka waxaana xukuumaddana ay kor u qaaday mushaarkii sannadkii nooga horreeyey ee aanu kordhinnay 100% iyada oo ay nootiila qabyo aad u badan dhaqaalaha dalkuna aad u hooseeyo deen cuusna nalagu lahaa khasnadda dawladduna ay madhnaadeen. waxaad og tihiin qalabka iyo saanadda aanu ciidanka ku soo kordhinnay oo gaadhaya 121 gaadhi. waxaan u howlgallay sugidda tirada ciidanka dhabta ah ee ciidanka qarankani haysto iyo iyadoo aanu ka saaray in ka badan 3,000 oo caagla ahaa taasoo aanu ku bedelay halkoodii ciidamo cusub oo la howlgeliyey waxaana ahayd hawl culus oo aanu ku ammaanayno saraakiisha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyey. darajada ciidanku waxay ka mid ahayd himiladii qaranka waxaan ahayd higsigii xisbigayagii aanu ballan qaadnay xilligii ololaha doorashada aanu ku jirnay. waxaanu ku faraxsannahay in riyadaasi ay dhabowday oo aanu maanta kumanaan ciidamada kala duwana ay qaranku ku lubisan yihiin darajadii. maanta waxaa laydin diyaariyey kuliyaddii saraakiisha ciidanka oo loo qorsheeyey inay dallacaddii ugu horreysay ee tababarka saraakiisha uu maanta ka bilaabmo jaamacadda tan si loo helo ciidan aqoon leh oo qaran oo garan kara waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaanyo khudbaddii uu ka jeediyey kuliyadda tababarka ciidanka qaranka ee daraweyne maruu ka hadlayey arrinta shidaalka iyo qodobka kale oo ahaa diyaaradda ethiopian airlines waxa uu yidhi waxaan jecelahay inaan kelmad ka idhaahdo arrinta shidaalka jinaal ee shidaalka iyo diyaaradaha Ethiopia Airline. arrintanoo ay mas-uuliyiinta mucaaradku tilmaamo khaldan ka bixiyeen bulshadana ay ku soo dhex tuureen hadallo aan la hubsan aflagaada aan loo midaadayn iyo mararka qaarkood oo ay ku baaqayaan hadallo ay qarannimada waxyeello ugu dhimayaan nabadgelyada iyo dalka ay mugdi ka gelinayaan. walaalayaal shirkadda jinaal may bixin ee way hakisay shaqadeedii. Ethiopian Airline waa shirkadda Ethiopian Airline wax ceeb ah kama ay sheegin madaarka Hargeysa waxayna ahayd been la abuuro la buunbuuniye bay ahayd. waa ilaahay mahaddii dalka Somaliland waa nabadgelyo waxaanu marayaa meel fiican oo lagu faano mana jiraan haba yaraatee wax hoos u dhaca oo ku